إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، waxaynu soo qaadanay habeenkii ugu dambeeyey aadaabta 33aad ee aadaabul cutaas hindisada, iyo sidoo kale waxaan qaadanay casharka 34aad aadaabut tasaa'ub. waxaan gadaal ka raacinay aadaabul lubsi nicaal oo 35 noqonaya. caawa waxaan ka qaadaynaa aadaabta 36aad aadaabu طaalib alcilm. aadaabta طaalib alcilmiga laga doonayo qofka cilmiga dalbaya, cilmiga sharciga ee diiniga ah, qofka dalbaya ee baranaya aadaabta laga doonayo waa aadaabta 36aad. waxaan ku xiraynaa markaa insha allahu tacaala aadaabta qofka musaafirka ah ee safraya, aadaab laga doonayo sharcigu u dejiyey baa jira, iyadana insha allahu tacaala waan raacinaynaa. kadib habeenka axadda hadduu allah subxaana wa tacaala idmo waxaa noo gabagaboobaya kitaabka saxiixa aadaab alislaamiya ay ka harsan tahay aadaabu alhadiya iyo aadaabu nowm iyo aadaabu maca nafs. saddexdaas cashar baa israacaya insha allahu tacaala. habeenkaa ugu dambeeya, habeenka ku xigay arbacada ah inta ramadaan ka horeysa, ayaan waxaan ka dhigaynaa wixii kitaabka laga fahmi waaye. ruux walba kitaabku wuxuu ka fahmi waaye, ama xarfuhu fahmi waayey, ama wuxuu macaanidooda fahmi waayey, inuu qalin ku qorto. habeen keliyaynu ka dhigi doonaa insha allahu tacaala, oo aynu ugu talagalnay waxay ardadu ka fahmeen iyo waxay ka fahmi waayeen inaan habeenkaasi saacadda iyo barka aan gelino. marka insha allahu tacaala kitaabkii caawo ka gelayey sidaas noogu taagnaanaya intaan kitaabka ka dhammaanayno hadduu alla idmo. caawa labadan marka laga reebo 3 cashar baa hadhaysa. axaddu wuu noo dhammaanayaa biidni illah hadii ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo. marka in aynu aad iyo aad macnaha kitaabka dib ugu noqonno oo fiirino ruux walba wixii kugu adag. haddii ay waktigu kaa buuxsamana dhib ma laha, haddii teleefonkayga aad qaadatid markaa aan gooni ahaan markaasi wixii aad ka fahmi weysid, intaba labadaba waa idiin fasaxan tahay insha allahu tacaala. caawa waxaan qaadanaynaa insha allahu tacaala hadduu alla idmo aadaabu طaalib alcilm, qofka cilmiga dalbaya aadaabta laga doonayo. awalan waxaa ugu horeeya an yaqsuda inuu u qasdo bicilmihi, cilmigiisa uu baranayo wajha allah, ilaahi subxaanahu wa tacaala wejigiisa. cid kale uu wax kaga raadin, karaamayn iyo sharaf uusan kaga raadin, wax kastoo kasoo geli kara ayaa looga hortegayaa. sidaa daraaddeeda qofka waxaa laga rabaa marka muslimka ah inuu aad iyo aad waxa uu qabanayo ee cibaado ah, mar walbana waynu soo marnay aadaab sidaas u tiro badan ah, in qofku cilmigiisa iyo waxa uu dalmayo iyo waxa cibaadaadoo dhan ilaahay dartii uu ula jeedo oo u qasdo. an yaqsuda bicilmihi, cilmigiisa inuu ula qasdo wajha allahi, alla dartii iyo wejigiisa. qaala tacaala, alla waxa uu yidhi wamaa umiruu laima amrin, waxa uu leeyahy wamaa umiruu lama amrin dadkii ilaa liyacbuduu, ama reer bani israa'iil, ilaa liyacbuduu inay caabudaan allaha alle keligi mooye wax kale lama amrin. mukhlisiina iyagoo u khaalis yeelaya lahu alle addiina diintiisa, xunafaa'a xumaantii kasoo baxayo kasoo iilanayo wanaaggii soo gelaya, wayuqiimu asalaata salaadii oogayo toosinaya, wayu'tu zakaata zakadiina bixinaya. arrinkaa unbaa la amray. wadalika kaasna diinu lqayim, diinta toosan weeye, wax kale lama amrin. waxa loo ciqaabay oy u halaagsameen markay alla keligii caabuda la yidhi oo aysan caabudinin oo shirki ay u yeeleen, ikhlaaskii iyo wax kalena ay ugu dareen oo ay ugu barxeen. taasaa la diidayo, camalkii iyo diinta alla keligii baa iska leh. waynu soo marnay aayaadka ah. wa fi saxiixayn waxaa ku soo arooray can cumar ibn khataab radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul inama alacmaalu acmaasha waxay ku sugnaataa binniyaati, niyaday ku sugnaataa.
جمع النية، وهي العزم القلب على فعل الشيء. إنما الأعمال، إنما آلات الحصر والقصر، أي إثبات الحكم في المذكور والنفي عما عداه. وحو عملك انقصق ناضايو كهجاجايو أجر لوجه ليا بالنيات نيدي. وإنما لكل امرئ روح والبنا ما نوى وحو نيستوه ليا. فمن كانت قفكي أهاتي هجرته هجرديسة، قفكي أهاتي إلى الدنيا يصيبها إنه الدنيا صهر وحو هجروني نيدي سمشى الدنيا كسوهشي، أو إلى امرأة ينكحها أما هوين يتكسو قرستي، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وحوالك أقول هجرودين بوكيه ليا، لكن ثوابكي أجركي أدو وجدك رأي كل هنتاي الثوابكي أجركي مهليه. حديث كاتور جربي حديث كأد بو قيمة بدية هي وحط المامية صدح قف وقوه الرئي مالين كقيامة العذابيه عمل كودي وخساري دركي إخلاصكي كبحي أيا صدح لاني اللو سهر مريي صدح عمل الله قبتنا وأعماش هو وين الدرجات كوين الجنة الله هله، لكن وحل وجوهر مريي نارت أقلين وحوي عمل كودي بان يدو دي بان قصد حن لهي وجد حن بي لهي بل صدح لا قف عينه دقيسن. روى مسلم في صحيح وحورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحويري سمعت وحن مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قصة مرنا أداب الزكاة بأن حديث كلفتي قصة مرنا لوجر بين صامرنا هوري. سمعت وحن مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول له إن أول الناس ذاتك وحا أغور إن أول الناس ذاتك وحا أغور يقضى الله حكمين الله حسابين يوم القيامة مالك قيامة عليه دشيزة رجل روح استشهد سو شهيدي شهادو ضلبي وراديو وكسو شهيدي فأوتي به والله إيمانيا ولكينيا مالكا فعرفه وحال قرنسينيا وحو إلهي سبحانه وتعالى أقول معي يا شهادة يقيمها أي لا فعرفها وقريا قيمها إيه ماشي وكجري لها يوحى أوليها مركل تصيه أو لا قرسيه أيو قرنيا فعرفها وقرنيا نمحلا ماشي إجارسي زنتاي. قال وحو يري فما عملته وحال أورنيا محاد كجا عمل فشي فيها هدبا. قال وحو أوليها نمعدا سوين إلا قرنسيه أو قرسي ماشي إجارسي زنتاي. قاتلت وان دقالمي فيك الله أديك درتابان أدقالمي حتى استشهدت إلا أن كوسو شهيديو دين هذه علم معناه جد كاجي أنا كوريالي إلا أن كوسو شهيدي. وحير قاتلت فيك أديك درتابان أدقالمي حتى استشهدت إلا أن كوسو شهيدو كوسو جيريودي. قال وحال أورانيا كذبت بين بات شاكتي ولكن كسي لغو نقوي قاتلت واحد أدقالنتي لأن يقال إن لغو يراده جريء وجيسي oo ma baqayo nin geesa weeyo markuu furmaha iyo dagaaladayo waa nin waxa weeye aan marna gabanayn waxa lagu rabay in lagu amaanaad rabtay geesinimaad umniyada kugu jirto in lagu yiraahdo waa geesi. faqad qiila waana lagu yiri inta adduunka joogto hebel waa haliyay weeye waa geesi weeye waa sida weeye waa lagu amaanay. thumma umira waa la amraya malaa'iktiyo bihi asagi inay jiido fasuxibu waa la jiidaya calaa wajigiisa dhulka lagu jiidaya xataa ulqiya fi nnaar ilaa naarta lagu tuuro. ninkaa shahiidka ah ee dagaalamay ee dar alla u geeriyooday ee u shahiiday ayaa la qaadaya maalinka qiyaama la keenaya naarta lagu tuuraya. dadku ugu horeeya la xisaabinayo ka mid yahay. oo maxaa naarta u galay niyadiisa baa xumaatay. camalkan zaahirkaynu annaga arkayno waxaanan ahayn baa qalbigiisa ku jirto inuu adduunyo waxa weeye la amaano oo waa geesiyo waa haliyeyo wax kale u muuqday. ثم أمر به ملائكة الله أمر يا فصحب على وجهه سيجيدي ساي ولوكي كجيدي سا حتى ألقي في النار إلى نار القطورة. ورجل وحال لا إيمان يكيل لباد ورجل من تعلم العلم علمي برتي شرعي أها وعلمه ددكين بري وقرأ القرآن كين أخري نوحل كين يا مالك قيامه علمي برتي دين تاها عالم oo culimo ah oo qaari ah ayaa la keenayaa. fa utiya bihi waa lala imaanayaa facarafahu
cilmiga barashadiisii dadku bartay nimcada uu leeyahaa la tusinayaa oo loo tilmaamayaa facarafahaa wuu qiranayaa wuu garanayaa qaala waxaa lagu odhanayaa famaa camilta cilmigaad bartay ood ku camal fashay oo dadkii aad bartay cilmigii aad baratay oo dadkiina aad bartay famaa camilta fiiha maxaad kaga camal fashay qaala waxa uu leeyahay tacallamtu alcilma allow cilmigii baan bartay wacallamtuhu dadkiina waan baray waqara'tu qur'aankii baan akriyey waqara'tu fiika alqur'aan qur'aankii baan adiga darta ee wejigaaga u akriyey qaala waxaa la odhanayaa kadabta maalin banaanka la keenaya wixii laabaha ku jiray yawma tubla saraa'ir laabaha wixii ku qarsoonaya dhan maalinka banaanka la keenaya qaala waxaa la odhanayaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacallamta alcilma cilmigii waxaad u baratay number baa nagu socday walaakinaka tacallamta alcilma cilmigii waxaad u baratay liyuqaala in lagu yidhaahda caalimu waa caalim waqara'ta alqur'aana qur'aankiina waxaad u akrisa liyuqaala in lagu yidhaahdo huwa qaari waa qaari ad macaanida iyo siduu qur'aanku u akrinayo iyo xaafidka waa qatar waa sida in lagu amaano faqad qiila waa lagu yidhi hebel waa caalim in magacaas aad hesho o aad raadisaa lagugu amaanay ayaad raadinaysay keliya niyadaada waxa weye in lagu amaano cilmigaad baranayso dhan adduunye iyo muuqaalkeeda iyo takriimkeeda iyo sharafteedaad ku raadinaysay qur-aankaad akrinaysay iyo qaarigii iyo codkii iyo wixii oo dhan aad iska muujinayso iska soo saaraysa in qaari lagu yidhahdo aad raadinaysa faqad qiila waa lagu yidhi intaad adduunka joogto uma umira bihi waa la amraya malaa'igta inay jido qaado fasuxiba way jiidaysa calaa wejigiisa xataa ulqiya fi nnaar ilaa ay naarta ku tuurto allahu akbar warajulun baa lala imaanayaa kii saddexaad wasaca allahu calayhi alla uu u waasiciyey wa acطa uu siiyehu asaga min asnaafi ilmaali maalka noocyadiisa oo dhan kullihi dhammaantii waxa maal noocuu yahay oo dhan ayaa la siiyey waa lala imaanaya hadduu geel yahay hadduu ari yahay hadduu dahab yahay hadduu diinaar yahay hadduu lacag yahay nin maalka asnaaftiisa maalka noocyadiisa kala duwan oo la siiyaa la keenaya fautiya bihi facarafahu nicamahu maalkaasi iyo xoolahaasi qofka dariiqa wanaagsan iyo niyada wanaagsan ku bixiya meesha uu ku gelayo darajadiisa la tusinaya nimcada uu leeyahay facarafaha wuu qiraya qaala waxaa lagu odhanayaa famaa camilta xoolihii lagu siiyey maalkii lagu siiyey noocyadiisii asnaaftiisii maxaad kaga camal fashay fiiha maalka qaala waxa uu leeyahay maa taraktu allow kamaan tegin min sabiilin wado tuxibu aad jeceshahay an yunfaqa fiiha in wax lagu bixiyo ilaa anfaqtu fiiha waxbaan ku bixiyey wado kastoo khayr oo la yabo habale waxbaan ku bixiyaa waxbaan ku darsadaa laka adci kale wejigaaga iyo dartaadaan wax ugu bixiya qaala waxaa lagu odhanayaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka waxaad u yeelaysa wax u bixinaysay facalta saas aad u samaysay liyuqaala in lagu yidhaahdo huwa jawaadun waa deqsi hebel suu wax u bixinaya sooma arag bismi llahi raxmaan kariimu kathiiru linfaaq suu meel walba waxbuu ku bixinaya waa kariim in lagu amaanaad doonaysa faqad qiila waana lagu yidhi intaad adduunka joogtay uma umira bihi malaa'igtii baa la amraya fasuxiba wejidaysa calaa wejigiisa xataa ulqiya ilaa lagu tuuro fi naari naartii saddexdaasa ugu horaysa maalinkii qiyaamo dadka la cadaabayo waa ruux caalim ahaa qaari ahaa iyo ruux waxa weeye alla dartii iyo jidkiisa kusoo shahiiday iyo ruux taajir oo maalqaba inuu xoolo ilaahay siiyo laakiin niyadiisii baa xumaatay marka camalka niyada in lala dagaalamo waxa inay faasid kaa noqoto laga ilaaliyo niyadaadu inaad mar walbaba waxa weeye iimaanku inaad weji ilaahay subxaana watacaala iyo dartii keliya aad u bixisid man acطaa lilah wuxuu xadiiska nabiga sala allahu alayhi wasalam man axaba lilah waabgada lilah waacطaa lilah wamanaca lilah faqad istakmala aliimaan qofka alla wuxuu jeclaanaya alla dartii u jeclaada wuxuu nacaya alla dartii u nacay ee diintiisa iyo kitaabkiisu ka fog yahay waxa uu bixinayana alla dartii u bixiya waxa uu ceshanayana alla dartii u ceshada faqad istakmala aliimaan xadiisku sidaas iimaankiibuu kaamil yeeshay روى أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحويري من تعلم أي علمك شرعك الوجه هذا علم مادي معها من تعلم قفك برت علمك شرعك من تعلم علمك شرعك قفك برته مما كاسو يبتغى كي لغو دلبيا به اسغا وجه الله الا وجهيسي درتي لو رجيداي اقفكي كدبرت علمي عز وجل ويناي لا يتعلمه ان البرنين
cilmigaasi wax kale uma baranayo ilaa liyusiiba inuu ku helo bihi asaga carada min addunyaa ay mataaca min addunyaa carad xoogaa adduunye iyo dhaldhalaalkeeda iyo inuu ku helo cilmigii u baranaya cilmigii sharciga ahaa ayuu wuxuu u baranayaa inuu wax ku cuno xoolo ku cuno wax ku raadsado liyusiiba inuu ku asiibo bihi asaga cilmigii carada min addunyaa adduun iyo dhaldhalaalkiisii wax yar inuu ku helo lam yajid ma helayo carfa aljannati jannada carafteeda yowma alqiyaamati maalinka qiyaama riixdeeda iyo carafteeda hataa kaa heli maya qofkii cilmigii sharciga iyo diinta ahaa macallinkiibaa qur-aanka wuxuu u xifdinayaa aad dadka lacag kaga heshid sheekhiibaa wuxuu u helayaa aad dadka lacag kaga aruursatid waxa weeye cilmiga sharciga qasadkaaga iyo niyadaadu haddaad adduunye aad ku heshid ay noqoto maxaa la daba dhigay lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama maalinka qiyaama jannada carabteeda iyo raa'ixadeeda ma helayo marka in la iska ilaaliyo cilmigu sharcigu in waxa weeye man tacallama cilma mima yubtagaa bihi wajha allahi caza wajalla laa yatacallamuhu uusan u baranayn ilaa liyusiiba bihi carada min addunya adduunye dheerteeda iyo dhaldhalaalkeeda inuu ku helo lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama jannada carafteeda iyo riixdeeda ma helayo maalinka qiyaamo ruuxa noocaasa qodobka labaad ee aadaabta cilmiga dalabkiisa waxaa ka mid ah arixlatu fi dalab alcilmi in rixlo iyo safar loo galo cilmiga dalabkiisa iyo barashadiisa juhdi iyo dadaal loo galo cilmigan maalin walba la isku baryayo la isla taagan yahay qofkii haddana uusan diyaar u ahayn baaba cilmigii sharciga xataa waxa weeye inuu faa'iidadiisu dadaal iyo juhdi u galo xadiiska wuxuu kuu muujinayaa waxa weeye saxaabiga jaliilka ah ayaa waxaa lagu tusayaa hal xadiis min nebiga ka maqlay sala allahu calayhi wasalam ayuu bil intuu neefkiisii ratigiisii rartay ayuu bil u soconaya hal xadiisu usoo maqlo adoo waxa weeye meel walba uu yaallo ayaa cilmigii sharciga lagugu kari laaya in aad barato cudurdaarka aad helaysa maalinka qiyaama muxuu noqonaya gurigaagii buu soo galay meel walbaad ka helaysa meel walba maanta wax alla waxa inaad barato aad u baahan tahay cilmi sharci aad kaga dhargaysa inaad juhdi bixiso dadaal aad bixisana diyaar uma tihi arixlatu in rixlo loo qaato safar loo galo fi talab alcilmi cilmiga talabkiisa iyo raadintiisa rawaa imaamu axmed waxa uu werinayaa في مسنده كتاب كيس مسند كورين يا وحسنه وحسن وحكى الألباني إمام الألباني رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل وكورين يا أنه أسجى سمع وحو مغلي جابر بن عبد الله صحابي جليل كوي رضي الله عنهما ويقول له بلغني وحي سوغاري حديث عن رجل من سمعه كمغلي للرسول الله صلى الله عليه وسلم وحال إيشاقي حديث هبل بأنبا كمغلي الرسول كالليلي بلغني حديث وربا إسوغاري عن رجل من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنين كمغلي الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي قابا وكير مخ فاشتريت وحان إيبسدي بعيرا نيف جيلة ثم شددت عليه رحلي سفر كيجي صحيح ديدي وان أتكيستي وان ديار صدي حرحرتي فصرت وان سعدي إليه ننكاسي حقيسة شهرا بالبان أسعدي حتى قدمت عليه الشام إلا أن شام صوغلي أرض شام وضمضان سوري لبناني أردني فلسطين با شام الاسكوير هذا سوري وقلت جهاد فاشتريت بعيرا بان يبسدي ثم شددت عليه رحلي سفر كيجي وان أحر حرقي وهيريد إذا أكيسي فصرت إليه شهرا بالبان أسعدي حتى قدمت عليه إلا أن صوغلي الشام شام فإذا كاسي عبد الله بن أنيس ويا نينكو أصفريه صحابي جليل عبد الله بن أنيس فقلت وحن كئري للبواب وارديه الباب كتاجنا قل وحا كتر هذا له أسقو جابر على الباب جابر بابنان كوتاجن كله وارديه بفرنتا أفري فقال وحا أويري ابن عبد الله يا جابر قلت وحن كئري نعمها فخرج مركبه سوبودي عبد الله بن أنيس يطأ يسقو جيدا يثوبه مرديس فرحد يا صحابي كلا يمين فاعتنقني ومعانقي قورت اعتناق waxa la yiraahdaa marka dadka laafta inta la isku qabto qoorta la isdhaafsado فاعتنقني ومعانقي oo igu soo booday واعتنقت waan معانقي qoortan dhaafsaday inta la isqabsaday marxabeynta weey فقلت waxaan ku iri حديثا حديث با بلغني إيجاكا سوغاري عنك حقاقا أنك أذيقا
سمعته إن كم قشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله إن الحديث كم قشي أيا إسو قاريب ويري وهذا الكافير الله أكبر بالبو السعودي وحويدي سنة يا كريه وحوي حديث رسولك كم غلي وفي القصاص قصاصته مالك قصاصته هذا اللوجي هذا وحوي أي في القصاص أي القتل ديك يا وحيابها أي في القصاص قصاصته كصابصا حديث أيو ويمت سيدا ضدك اللوجو كلا جوينة يا قصاصته فخشيت وحن كبقي أن تموت إن جيريوتا أو أموت أن جيريوتا قبل أن أسمعه إنت أنا الحديث كاس مقلد والولو كسعادي كاي أوفيرس سياسا كو إمد بويا مكو وقور رمي سفر كيسي صوته ويمد قال وحويه عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام مقلو يقول له يحشر ولا صو حشر ولا صو صاري الناس ضدك يوم القيامة مالك قيامة بنانك محشر قيامها لكينا يا ماشي القصة حشرين يا ضدك يحشر ولا صو حشرين يا ولا صو صاري أي يجمع الناس في المحشر ماشي القو حسابين يا بنانك والله صو صاري يوم القيامة مالك قيام وقال مسوحير العباد ماشي يحشر الناس موحير يحشر العباد الضوامدي والله صو حشرين يوم القيامة مالك قيام أو قال موحير العباد ميوير ماشي الناس كير وحال صو حشرين عراتا إيغو عراتا أوه قاون أو أندر قبين بالله صو حشرين غرلا أوه بوريدي قبال صو حشرين بهمن بالله صو حشرين أي ما معنى بهمن كذا وحال لولا جيدا aan wax ku darsamaya aysan jirin midabkooda wax kale ku dheehmaya aan jirin ba adoomadii la soo xajinaya oo sii weydiinaya qaala wuxuu yiri qulna ma buhman waa maxay qaala wuxuu yiri laysa ma'ahum shay'un laysa ayagoo aan ahayn ma'ahum la jirankooda shay'un shay waxba aan sidan oo qaawan oo midabkoodii oo sidoodii oo wax aan ku darsamaynin aan wadana sidii qof walba ayaa lagu soo saaraya ليس معهم شيء وحلا جرا سنجرين ثم يناديهم بصوت وحاول واقيا ثم يناديهم وحاول واقيا بصوت صوت يسمعه من قرب ملو كما غليان أنا الملك أنا بقركية أنا الديان أنا كي حكمك هاي قادك أسماء من شعثيمين باوحي الديان اسم من أسماء الله بكمل دي هاي ويرادا معناها أنا الملك أنا بقرك أنا الديان ديانك وحوي أنا الحكم القاضي كي وحكمي قاضي أي وحكي لجويني يا ما أنت أنا قوي وحكي له شيئا كرماني كاس الدنيا بقرية والله وش يكتا لكن ماني كاس ألا كلي أنا الملك أنا الديان أتكاسي مقليا ملو ولا ينبغي مصوبته لأحد قف ومن أهل النار ذاتك أهل النار أن يدخل النار نار إنه قالوا وله يسقوا عند أحد قف أكتس يقصقناته من أهل الجنة ذاتك جنة حق الأكلية نار تمجليه حتى أقصه منه إلا أن أغقويه أغا حكمه ولا ينبغي مصوبته مدى عيسى لأحد قف ومن أهل الجنة أهل الجنة كمذا أن يدخل الجنة جنة إنه قالوا ولأحد قف أو من أهل النار ذاتك أهل النار كان عنده حق حق الأكلية حتى أقصه إلا أن أقويه كي أهل النار كبا مت جنة قليا حق لها كي أهل الجنة حق لك صجرية حتى لطمة حتى أرباحها الله كدقه ما نكاسوا لك لقوينيا حتى اللطمة الله أكبر ما نكاسي حتى أرباحه ظلمي قفك أكبر بفاتي ما نكاسوا لك قوينيا أي ضربة التي تكون على الوجه ضرباحات كل فتحة مالك والقا قوينية قال وحوير قلنا كيف سديبا وإنا أنه إنما نأتي الله الله وحقنا عز وجل عراتا أنه قاون غرلا بوريقه بهما أو وحكا لسيدا سيمرك وحلوك لقوينية الله وكلا قصاصية وحقاتي إن وحلوك لسينا وحلوك لقغادة وحلو موضا نو ونقاونا هايو سيدا نو كل ليو بوريدي ويو وحكا لنا مسيدا نو سيدا لو كلا قصاصية قال وحويري حول الدنيا دي إياه وحلك لقويايو وحل إرادة وحكا قري بالحسنات والسيئات وحلوك لقصاصية بالحسنات والسيئات حسناتك يا سيئاتك يا قففك والك لقاضية حسناتك أيها ضد لو قيبين يا الله فينا يا
sayi-aadkiisii baa laga soo qaadaya oo kafadaadii baa lagu saaraya. dad baad xamatay, dad baad wax ka sheegtay, hadday fursad aad u haysataa aad oran karta ay cafi. qofaa xoolaa aad ka qaadatay hadda oran kartaa war xoolahan aan kaa qaatee ho. laakiin maalinkaasi waxa qofkii xoolaha kugu lahaa xoolihii lagaa siin maya xasanaadkaad shaqaysatay, salaadaadii, cibaadadaadii, tasbiixdaadii, qur-aankaagii, salaatuleylkaagii, cilmigaagii, sharcigaa, kafadaadii khayrka oo kuu buuxda ayaa la aruursanayaa oo la qaadanaya. xasanaadkaagii baa loo qaybinaya, iyagana sayi-aadkii baa laga soo qaadaya oo miisaanka laguu saaraya. maalinkaas xasanaadka sayi-aadkaa la kala qaadanaya. sida loo kala qisaasayo waa sidaa maalinkaas. wixii uu kaa galay baa lagaaga goynayaa, wanaagiisii baa lagaaga soo jaraya. hadduu wanaag jirina xumaanta baa dusha laga saaraya, isagii kafadiisa loo saaraya. adoo wanaag badan haysana dadaad dulmisay, midaad xamatay, midaad dacnisay, midaad durtay, midaad wax ka sheegtay, midaad durtay, wixii oo dhan xasanaadkaagii baa la aruursanaya. wataynu xadiiskii aynu sheegaynay. ilaalin bay u baahan tahay marka acmaasha khayriga in la ilaaliya u baahan tahay. qodobka saddexaad waxa weeye aadaabta talab macnaha cilmiga dalabkiisa, cadamuljuluusi inaadan fariisan wafta alxalqati, xalqada marka la fariisanayo dhexdeeda inaanan fariisan. xalqa waxaa la yidhahdaa inta qofku maaragtay wareeg la sameeyo oo loo fariisto, qof inuu dhexda ka fariisto wareegii. xalqadaasi inaad waftigeedii dhexdeeda fariisato. waxaad arkaysaa mararka qaarkood dhalinyarada iyo wadaadada iyo qof baa waxa intay ku wareegsamaan dhexdii qofka la fariisinaya qur-aan baa lagu akrinaya. xalqa dhexdeeda lama fariisto. cadamuljuluusi wasط alxalqati, inaan la fariisan xalqada bartamaheeda iyo dhexdeeda. idaa taxallaqa طulaabu, ereygaas kuu qoray marka, idaa taxallaqa hadday xalqa sameeyaan oo wareeg sameeyaan aطulaabu ardadii xalqatan wareeg, falaa taqcud ha fariisan, wasdigeeda ha fariisan. sidaasuu leeyahay. haddii macnaha ha fariisan, idaa xallaqa طulaabu xalqatan falaa caqda wasdaha, wasdigeedii dhexdeeda ha fariisan. falaa taqcud wasdaha. lama rawaa wuxuu weriyey atirmidiyu imaamu tirmidi waqaala wuxuu yihi xasanu صaxiix can abi mijlazin ana rajula nin baa dacda fariistay wasta xalqatin, xalqa bartamaheedu fariistay. faqaala markaasaa wuxuu yihi xudayfa, saxaabigii jaliilkaa xudayfatu, malcuunu waa lacnadan yahay calaa lisaani muxamed, nebi maxamed carabkiisu ku lacnadan yahay. o mise wuxuu yidhi lacana allahu, allaha lacnado calaa lisaani muxamedin, carabkii nebi maxamed sal allahu alay slam lagu lacnaday, man qacada wasta alxalqa, xalqada bartamaheeda qofkii fadhiista. xadiiskan wuxuu ka mid yahay xadiista kitaabkan qaarkii lagu haysta. bacdu culamaana xasankaanay ka dhigaan, bacdina way daciifiyaan, agarkooda way daciifiyaan, laakiin sheikhu xasan buu ka dhigay. kitaabkan uu kusoo daray sheekh albani xadiiskani silsilata axaadiisu daciifu ku daraa. laakiin waa mas'alo aragtida ijtihaadka culummadu, inna way daciifisay, inna de way deliishataayo in laga fogaada marka, in laga fogaado xalqada bartamaheeda in la fadhiisto. qodobka afraad waynu soo marnay dhowr jeer haddaad xasuusataan, aadaabulجuluus baynu kusoo marnay. qodobka afraad waxa weeye cadamu shibaci, ardayga talabulcilmiga ah inuusan dhergin. haddaad dheragto dee mana tukan kartid, waxna ma baran kartid, oo iska hamaansanaysa. bal u fiiri dadka waxa weeye hadda waxaa laga yaabaaba cilmigii sharcigaba inuu dhumo. qofkii taleefonka ka dhegaysanaya waxa weye dhinac jibku kaga jira, dhinac caruur buu ka haya. waxaa laga yaabaaba inuusan ba u aabayeelinba cilmigaasi socda, waxna waa tegaya, waxna iska baaba'aya. macna uqasad ma jiro. marka dheregtu waxay ka mid tahay waxyaabaha fahmada qofka iyo xifdiga dhumiyuu ka mid yahay. cadamu shibac, inuusan qofkii isdhergin. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن مقداد بن معبد يكربي رضي الله عنه قال وحويري حديث كافر شنجر بين صامرني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له ما ملأ مبوحي آدمي من آدم ويل شرا كشر بدن من بطن علول حسب الآدمي ابن آدم وحا كفلا لقيمات قاد قادشو يقمن وكتوسيو سلبه دبركيسو قاجدو اسكاغا بخيو اسكاغا بابيو فإذا غلبت هديك غالب نقطه أو بعض الراشينك الآدمي آدمي نفسه نفتي كغالب نقطه أو بعضه فالثلث صدح قيبون ميل لطعام فصدح ميلود ميل لطعام الراشين هجليو وثلث صدح ميلود ميلنا للشراب عبيتان هجليو وثلث صدح ميلود ميلنا للنفس النفس شيء أكسجين كي أهو بنايو لكن ماشي دعامكي راشينكي هوديو بيه يقول هذا راشينك بحيسو أدنى النفسته inba waxa laga sheegay Soomaalidu ku dacayadeynayaan oo ay leeyihiin suu cunayo caloosh gadaal ka dilaacday markaas gadaal intuu dhigtay buu wuxuu yiri yaa dhagaxa igu dhiftay marka directu dhaqan gaala weey ayaga 7 caloolood xadiistu ay ku sheegeen
qofka muslimka ah waxaa laga doonayaa wax un gaajada uu iskaga bixiyo caafimaadkana sidaasuu ku jira waxyaabahan iga iyo caloosha harageeda u dhamaanayo waxyaabahan dhibaatada ku dhacaysay oo qofkaysan raashinkiisu aysan qiyaasnayn dadka waxa weeye xanuunada badan ee bini aadanka hadda ku dhacayo dhan caloosha ka timaada marka waa inuu qofku wax u qiyaasan tahay waa inuu wax cunayo oo waxa weeye hal mar intuu wax ka qodobka shanaad التثبيت في الفتية waxa tathbiit in uu hubsado qofkii fadwadii in uu hubsado التثبت hubsasho في الفتية fadwadii uu fadwoonayo waxa uu sheegaya diinta in uu hubsado inuusan iska sheegin wuxuusan hubin xadiiska aad ugu fiirso marka التثبت hubsasho iyo iska ilaalin في الفتية fadwada la iska ilaaliyo qofku wuxuu ku hadlayo oo uu sheegayo diin ah wuxuu huba kaliya inay noqoto روى أبو داود وحورنا بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحويري من أفتي قفكي فضوضة بغير علم لآن فضوضة كان وحا هذا اسمه دنبجيسة على من أفتاه قفك أفضوضي ومن أشار قفك أتلمامة على أخيه ولالكي بأمر أرن يطلق تلمامي يعلم أجهي أن الرشد هنون كيدا يونا كيدا في غير كدين كجرت تلال لغير ربيسي وناكسن إنه قوت المامو سكر قوت المامي فقد خانه خياني نصيحه ربي إنه قول نصيحيه سلا وناكسن إنه قول نصيحيه والله في علاوضي وثقل دنبه قول نصيحيه فقد خانه خياني بويري النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة هذا أركيسان إيو maalmahan aad gelaysaan talaadada iyo barnaamijyada aad gelaysaan in la aad iyo aad la iskaga ilaaliyo haddaada maskaxdaadu waxa sax aysan kusoo degdegin ha iska oran ha iska caatifoonin waxa weeye sida macnaha dadaalka iyo juhdiga iyo diinta ku jiro naseexadaadu inay noqoto man uftiya bigayri cilmin qofkii fadwooda cilmi lahaan kaana ismuhu calaa man aftaahu qofku u fadwooday waxa ku dhaqmay dembigiisii buu qaadanaya waman ashaara calaa akhiihi qofkii walaalkii uu ishaaro u tilmaamo biamrin arin yaclamu uu og yahay ana rushdigeeda iyo hanuunkeeda wanaageeda macnaha sidii tooska ahayd fii kayrihi kayrkeed ay tahay faqad khaanahu khayaanay qofkaasi ogaa qof walaalkaayo tala wanaagsan kaa rabay baad meel kale ugu tilmaamtay dhinac kalaad u ishaartay naseexo kale faqad khaanahu khayaanay qofka khaa'in baa lagu qoraya qofka aadabta qodobka lixaad cadadka cilmiga talabka waxa al-ibticaad can al-macaasi qofka cilmiga sharciga baranaya waxaynu soo marnay markaynu tilmaamaynayna muxaadaraad baynu ka jeedinay al-ibticaad can al-macaasi macaasida inuu ka fogaado qofka waxa weeye haddii uu macaasi ku dhaco quraankii baa culays ku noqonaya diintii baa culays ku noqonaysa cibaadadii baa culays ku noqonaysa marka macaasidu inuu ka fogaado cilmiga waa nuur weeye haddii qofka macaasi ku dhacana waa mugdi qalbigay buuxinaysaa qaala tacaala alla waxa uu yidhi wattaqu llaha alla ka baqa awaamirtiisa qaata wuxuu idinka reebayna ka reebtooma taqwadu waa sidaas wey wayucallimukum wuxuu idin barayaa allahu alle wanaaga iyo khayrka ay yucallimukum kullu ma taxtaajuuna ilayh wayucallimukum allah wax alla wixii aad u baahantihiin buu alla idin baraya haddaad baqdin iyo taqwo iyo alla kacabsi la timaadaan wuxuu idin farayna aad fartoontaan wuxuu idinka reebayna aad ka reebtoontaan wayucallimukum allah allah idin barayo idin fududaynayo wixii aad u baahateen wallahu allana bikulli shayin shay walbaba caliimun allah og weeye وقال سبحانه وحيري يا أيها الذين ذاتكي آمنوا إيمانك لغا هلو إن تتقوا الله حداد الله كبغضان وبغضين لبا الله تمادان معناها عاد اسكتهدان واسكحزيسان معاسدي يجعل لكم وحيدين يلي فرقانا بو إذين يلي وحقي باطلك إذين كلا سارة قفك توصن يقفك قلوعا رنت إيا بينتا أيو إذين كلا سارة محال لغا ربا مركب dadkii mu'miniinta ah in tattaqullaha haddaad alla ka baqdaan oo taqwo aad la timaadaan alla kacabsi la timaadaan yajcal lakum furqaan buu idin yeelaya xaq iyo baatilku idin kala saari wayukaffir wuxuu dhaafi cankum xaggiina sayi'aatikum gafafkiina wayakfir lakum una idin dembi dhaafi wayukaffir wuxuu tirtiri cankum xaggiina sayi'aatikum wixii sayi'aadii gafaf idinka dhacay ويغفر لكم دنبجينا ودافي والله ألنا ذو الفضل ديراتك العظيم وين الله أصاحبك أوي marka waxa weeye
in macaasida xumaanta laga fogaado ayaa aadaabtu iska soo aruuriyay oo iska soo koobay laakiin qodobo muhiim ah oo aad u tiro badan buu ka tegey waxaan ku xiraynaa insha allahu tacaala casharkeena caawa aadaabu safar oo aadaabta 37 ah aadaabta 37 caawa ayaynu ku soo xiraynaa aadaabu safar waa aadaabaha muhiimkay ka mid tahay qofka muslimka ah ducada safarka laga doonayo inuu akhriyo qaabku uu akhrinayo aadaabta shareecada ay u dejisay safarka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha muhiimka ah qofku inuu waxa weeye barto ay ka mid tahay hadaad fariid aadaabtan bal caawa la tilmaamayo weligaa ma la timid may hadday tahay marka wax badan oo shareecadaadii baa kaa dhiman aadaabu safar waxa kow ka ah al-istikhaara inuu qofku istikhaaraysto waxa weeye laba arrimood midda khayrka badan ilaahay uu waafajiyo inuu safarka uu u socdo hadduu khayr u yahayna alla waafajiyo hadduu shar u yahayna alla uu ka celiyo ayuu u istikhaaraysanaya u tala weydiisanaya waxa weeye istikhaarada sideeda waxaa la yidhaahdaa kala doorashada laba arrimood midda u roon qofka uu alla weydiisanayo xadiiskan waynu soo marnay waa kor maraynaa keliya روى البخاري عن جابر بن عبد الله جورك مركينو مرينا آداب النكاح إنه استخارة اللي يمادو استخارة أي تاي الله ويديسو جور كان إنه خير إياه إنه شر إياه إنه الله ويديسو واستخارة وتلا ويديسو مركي حدنا وصفر وحكيسو أرم وكل نقاط يدو جاريسو يبسنا يدو شيء كلا سمينا يوحاسو لنبا آداب الله أخيستا مركي هذا سفر كوسو قليي روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحويري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها يعلمنا من نبره الاستخارة تلويدي سشد في الأمور أرمها كما يعلمنا سيد النبري الصورة صورة ومن القرآن قرآن كاملة يقول وحير إذا هم هديه هميه أحدكم يتكين بالأمر أرن فليركع حرتك ذو ركعتين لبر ركعات ومن غير الفريضة عن فرض أهين ثم ليقول هيرادو اللهم الله يو إني أنوه أستخيرك وحنكو استخار ويدي سنيا oo labada arrimood midda khayr ku jira inaad ii samaysid biilmika cilmigaagan kugu weydiisanaya ogaashaaga wa astaqdiruka iyo qudradaada wa astaqdiruka waxaan kugu awood weydiisanayaa biqudratika awoodaada iyo karitaankaaga wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika dheeraadkaaga alcadiim ee weyn fa innaka adiga taqdiru waad awoodaa wala aqdiru ma awoodo wa ta'lamu waad ogtahay wala a'lamu ma ogi wa anta adiguna علام الغيوب وحقرصون أمورها كان كور قباتها اللهم الله يو إن كنت تعلم مدعك أن هذا الأمر أرنكاني واضح هاي معنى أرنك علنيا الله أرنكان يترضى عن أبقاق عن سمعين يو اللهم الله يو إن كنت تعلم أن هذا الأمر ذات أكتهي إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن هذا السفر خير لي إنه خير إياه في دين تيدا ومعاشي معناها نوش تيدا وعاقبة أمري عرد تيدا الدنبه أو قال عاجل أمري وآجلي أرنكي كان هريك الدنبه فاقدره إي قدر ويسره لي إي فوضه ثم بارك لي إي بركه فيه وإن كنت تعلم ذات أكتب أن هذا الأمر أرنكاني شر لي إنه شرعية في دين تيدا أرنكا سفر كاني هدو شرعية في دين تيدا ومعاشي نرشيدا وعاقبة أمري عربتيدا دنبا أو قال في عاجل أمري وآجل أرنكا يغوري كان دنبابا هدو شرعية فاصرف عني الله يقليحي واصرفني عنه أنا يقليحي الله أرنكاسنا يقليحي أنا يقليحي قلبي يكدو واقدر لي يقدر الخير خيرك حيث كان ميشو يهي ثم رضني الله رالي يقدك ويسمي حاجته حاجدي سوى مقعابا يا مركا داي سفرتا داي قورتا وحي تايبا هورين أصو مرني إنه استخارة لي ماذا مركو سفرية وسفركو استخاريش وضبك الله بالحاجة كتابة الوصية إنه قره وصية يدردارا qofku tagaya wuxuu ku soo noqon doona lama ogo inuu dardaaran iska qoro dardaaran diineed buu noqon kara dardaaran xoolo noqon kara dardaaran caruurtiisa uu noqon kara waxay noqoto inuu dardaaran qoro fa fi sahihayn an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala wuxuu yiri ma haqqu imri'in muslimin ruux muslim haqiisa ma aan lahu asagu shay uu sugnaaday yusi uu dardaarmo fi dhaxdiisa yabitu baryaya laylatayn illa wa wasiyatuhu إلا وإن يتهي ووصيدي مكتوبة عنده من أكتيس قرن قف مجرى حديث كان وين صامرني مسلمة أو أسقناتي وح أودر دارمه أو بريا لذهبين
ilaa wawasiyatu dardaarankiisa maktuubatun inay tahay cindahu agtiisa mid qoran markuu safrayo waa inuu dardaarankiisa diyaariya qodobka saddexaad waxa weeye xadiistan oo dhan waynu soo marnay alafdal anlaa yusaafira waxda sida fadliga badan ee wanaagsan waxa weeye anlaa yusaafira inuusan safrin waxdahu keligii inuusan safrin روى الترمذي وحورنا وحسن وكدغ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أوغي وكورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحويره الراكب كالراكب كلغي سفرية تجي قادت قادنا بحية الراكب شيطان وي عمل الشيطان كوي والراكبان لبا الراكبنا وحي الرسول صلى الله عليه وسلم شيطانان لبا الشيطان وي الراكب شيطان والراكبان شيطان أي أن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل وحدة من فعل الشيطان الغوضة راكب ككله سفرية شيطان أي من فعل الشيطان ويقف كله تقية والراكبان لبضا كله تقينا شيطانان لبا الشيطان ويفعل كشيطان والثلاثة تسدحنا ركب وسفر أو جمع ويه مركوا لقفل لبدن يعي يعني dadku keligii qofku uu safro waxa wanaagsan inuu jamacay koox u raadsado xadiiska waynu soo marnay qodobka afraad waxa weeye ikhtiyaaru rafiiqi saalix inuu qofku markuu safrayo qof wanaagsan oo saalix oo wanaagsan inuu raaco dad wanaagsan inuu raaco روى الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحويره لا تصاحب هلا صاحب وسفر هلقل إلا مؤمنا روح مؤمنا موي ولا يأكل يوصن عن طعامك راشنكاga إلا تقي قف الله كبقيا موي marka waxa xadiisku u boorinaya oo uu tilmaamaya la tusaaxib illa mu'minan min al-musaahabati mulazamadaada qofku alla soconaysid alla saaxibaysid illa mu'mina inuu mu'min ma qof kala raacay wala ya'kul yusan cuni ta'amaka illa taqiyun ay mutawarri qof alla ka doorsanaya mooyee faafaynteedu waynu soo marnay aadaabta ta'amka raashinka markaynu soo maraynay qodobka shanaad waxa weeye an yuwaddi'a inuu sagootiyo ahlahu eelkiisa wa jiiraanahu jiiraankiisa wa asxaabu iyo asxaabtiisa markuu tagayo farxad bay u tahay oo u wanaagsan tahay oo aadaabta kamid tahay inuu sagooti sameeyo eelkiisi jiiraankiisi asxaabtiisi saaxiibadiisi dadka u yaqaan inuu la socodsiiyo روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عمر رضي الله عنهما أنه قال وحي للرجل انتظر السك حتى أودعك إلا أنك سقوتيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا سيدنا سقوتينيا أستودع الله وعنكو أمانة ويدي سنة إنو كحذيه الله دينك دين تابع يا أذيقب وأمانتك أمانة هذه قرقاقي أهلكاقي حاسكاقي حرورت هذه وخواتيم عملك يا عمل وناكسن إنو خاتمه وناكسن إنو الله سبحانه وتعالى كوغو خاتمه أستودع الله دينك بالأوفير دعاء نبي صلى الله عليه وآله وسلم مركو تلمامي qofkii waxa weeye rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye ducadii astawdicukum Allah rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u tilmaamayaa ay astaxfidukum Allah ta'ala waxaan ilaahay xifdigiisa kugu weydiisanay inuu Allah ku xifdiyo weeye ay yaj'alukum min xifdi Allah ta'ala wa ri'ayati inuu Allah subhanahu wa ta'ala xifdigiisa ri'ayadiisa ilaalintiisa u diintaada ku ilaaliyo وأمانتك أمانة هذا نكو إلاليه حوينك عروتي ويسوق ليسا وخواتيم عملك يا عمل كاغا خواتيم تيسا ما يختم به من العمل إن عمل وناكسي إلهي سبحانه وتعالى قوة ختمة هذا حمان يفسق يكون حمان كو صفري بل كوا سوق هذا قلت يسوق حمان كو صعدة قبل يدو كلي يدو حوي محرم لعان سفرتي إذا هيلي كرتكتي خاتمة حبيق النقطة قارقي بألقى دومي عمل fartay khaatimada xun bay u noqotay marka waxa ilaahay u weydiinaysaa ilaahay inuu kugu xifdiyo diintaada iyo amaanadaada iyo wa khawaatima amalika iyo amalkaaga khaatimo wanaagsan inuu kaaga yeelo ayuu ku ducaynaya marka in marka loo duceeyo qofkii safraye inay sagootiyaan an yuwaddi'a ahlahu jiiraanki iyo asxaabtii inay sagootiyaan loo duceeyo waa shay mashruuca wax dhibaan leh an yad'u Allah تعالى بدعاء سفر أن يدعو الله تعالى سرية بدعاء سفر دعاء سفر كأهيد الله سبحانه وتعالى إنه كبريه دعوين كسفر كوي بدنيهين لكن مد كم إذا أنبو هذا سوقاتي وحوي دعاء أهيد دقاريد كي يمرك الله فوليه أيو سوقاتي
marka waxa uu leeyahay an yadcu allaha tacaala biducaa'i safar. rawaa muslim wuxuu werinaya fi saxiixi can cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa rakiba raaxilatahu raaxiladiisii hashiisii iyo gaadiidkiisii marka uu fuulo kabbara wuu takbiirsanaya 3 jeer. neefkii marka uu fuulo ayuu wuxuu odhanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar 3 jeer buu odhanaya rasuulka sala allahu alayh waalih wasalam. markuu gaadiidkiisa fuulo ama gaarigaagii aad fuusho ama diyaaraddii aad fuushaad waxaad odhanaysaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar. uma qaala markaasaa wuxuu yidhi wuxuu akriyey subxaana aladii sakhara lana subxaana aladii sakhara lana hada ay usabixu allaha waxaan u tasbiixsanayaa alleh aladii jacala hada musakhiran mutiican lana. subxaana aladii waxaa nasahan allihii nusqaanii ceeb oo dhan ka nasahan sakhara noo fududeeya lanaa annaga haadaa kan gaadiidkaan ah. birtan baad iska saaran tahay oo shaagaana ordaya waa iska raacaysa diyaaradda hawada raacaysa ayaad iska socota yaa kuu sakhiray oo kuu fududeeyey. allahaasaa ceeb iyo nusqaan oo dhan ka nasahan. wamaa kunnaa manihi lahu asagu muqriniina wamaa kunnaa lahu muqriniina ay mutiiciina waqiila maalikiina kuwa kaloo awoodo annaga manihi. wa innaa anaguna ilaa rabbinaa rabbigan xaggiisaa lamunqalibuuna aanu u laabanaynaa ay raajicuuna ilayhi fi laakhira xaggiisaan u laabanaynaa. inqilaabka insiraafka la yidhaahdaa. kuwa kaloo awooda annaga manihi wa innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigan xaggeeda lamunqalibuuna aanu naloo celinaya o u noqonaynaa. uma yaquulu wuxuu odhanayaa markaa kadib allahuma allahayow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa ducadii buu akrinayaa marka. allahayow waxaan ku weydiisanayaa fii safarii haadaa safarkaygaani albira wanaag iyo samafal baan ku weydiisanayaa wataqwa iyo alla kacabsi wa min alcamali camalkiina maa tardaa waxaad raalli ka tahan ku weydiisanayaa. allahuma allahayow hawin fududee calaynaa dushannada asafara safarkii watwi noo soo aruuri lanaa annaga albaciida kii wixii fogaana noo soo gaabi. allahuma allahayow anta saaxibu safari anta saaxibu ay mulaazimu araada bidalika musaaxabat allahi tacala iyahu bilcinaayati walxifdi. allahuma allahayow muxuu leeyahay anta adiga asaaxibu fi safari qofkii musaafirka ahaa kii cinaayeynayey oo xifdinaya oo ilaalinaya adiga weeye. ilaahuna xifdiyoona ilaali buu leeyahay marka. allahuma anta saaxibu fi safari waalkhaliifatu fi lahli waalkhaliifa aladi yanuubu can lmustaqlif. macnaha khaliifa waxaa la yidhahdaa waalkhaliifatu fi lahli qofkii looga tegayna ehelkii iyo dadkii carruurtiina waa adiga. anta aladii arjuu waactamidu calayhi fii ghaybati can ahli an talumma shucsahum. allow carruurtaydii iyo ehelkayga gurigaygiina kaan kaga tegay waa adiga oo waxa weeye ilaalinaya oo aan cuskanayey cid kale kagama tegin. allah subxaana watacaala dadku waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan xoogaha gurigii iyo carruurtii iyo odayaashii dariska inu iska lakin inaad ictimaado oo marka ugu horraysa allah subxaana watacaala aad u dhiibato ducadaado inaad waxa weeye uu ku ilaaliyo carruurtii iyo gurigii iyo ehelkii. qodobka toddobaadii waxa weeye an yadluba alwasiyata inuu ka dalbo wasiye iyo dardaaran min alculamaa'i dadka culummada ee wanaagsan ee xaqa garanaya iyo wasaalixiina dadka wan wanaagsan inuu yidhaahdo safar baan u socdaa ee ii dardaarma. inuu dadka wan wanaagsan la tashado oo ii duceeye uu yidhaahdo. ducooyin badan baa soo arooray oo xusni muslimka aad ku aragteen. ducooyinkaasna waad akrin kartaan. waxa weeye ducooyin badan waxaa kamid ah markii aayadka allahu akbar subxaana aladii sakara lana hada wama kuna lahu muqriniin wa ina ilaa rabbina lamunqalibuun. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ونركصون نقول ويراده وكسو درمك انت ورنتو أخي آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. دعوين بضن باصو أرضي إنه أخري دعوين كاسي oo markuu magaalooyinkii iyo gelayo ducooyin boo loogu talagalay waa iska fududahay qofku uu baran karaa. an yadluba alwasiyatu min alculamaai wasaalixiin dadka wan wanaagsan ee culummada iyo dadka saalixiinta dardaaran inuu ka dalbo. rawa tirmidi wa qaala xasanun gariib xasan gariib aweye wasaxaxu albani albanina uu saxiixiye can anas radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi nabigu u yimid sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi inii anigu uriidu waxaan doonayaa safaran safar zawidnii ii dardaaran buu yidhi.
rasuulkii allow safar baan u socdaa ee ii dardaaran. nin baa nebiga u yimid, yaa rasuul allah mud baa fuulay marka waxba ka hadlaysana umalaynaya. qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi inii uriidu safaran baan doonayaa zawidnii ii dardaaran. macnaha zaadka waxaa la yidhahdaa sahayda iyo khayrka iyo wanaagga ee dardaaranka. watazawadu fa ina khayra zaadi taqwa watu alla lahaa. rasuulku wuxuu yidhi zawidaka allahu taqwa, waxaan kugu macnaha sahay dhigaya sahay ka dhigo ilaahay subxaanahu watacaala kaaga dhigo taqwadiisa iyo alla ka cabsigiisa. qaala wuxuu yidhi zidnii ii ziyaadi. ninkii rasuulku sala allahu alayhi wasalam la hadlayo wuxuu yidhi zawidaka allahu taqwa ay jacala allahu zaadaka taqwa, allah kaa yeelo zawidaka allah, allah kaaga yeelo zaadkaaga attaqwa, taqwa allah kaaga yeelo. qaala wuxuu yidhi zidnii ii ziyaadi. wagafara dembaka dembigaagana ha dhaafo. qaala wuxuu yidhi zidnii ii ziyaadi. qaala wuxuu yidhi wayasara ha kuu fududeeyo laka adiga alkhayra xaytumaa kunta, khayrkana meel walba uu yahay allah ha kuu fududeeyo. qodobka 7 qof baa muudka ka baxsan. qodobka 8 waxa weeye istixbaabu safari yowma alkhamiis, inuu qofka marka uu safrayo oo waxaa sunno oo wanaagsan inuu maalin khamiisa uu safro. maalin khamiisa inuu safraa wanaagsan. rawa albukhaariy can kacb ibni malik radia allahu canhu kaana yaquulu wuxuu yidhi laqalamaa waxaa yaray kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yakruju inuu baxo idaa kharaja markuu baxayo fii safarin ilaa yowma alkhamiisu baxayo. waxaa yarayba maalin kale inuu baxo ilaa hadduu baxayo maalin khamiisu baxaye. kaana yaquulu laqalamaa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, wuxuu tilmaamayaa bixitaankii laqalamaa kaana rasul lah sala allahu alay wasalam wuxuu waxaa yaray yakruju inuu baxo idaa kharaja fii safarin safar markuu baxayo ilaa yowma alkhamiisi mooye, mar kale inuu baxaa yaray. ay kaana safarun yusal fi gayri yowmi alkhamiisi qaliilan, waxaan maalin aan khamiis ahayn aad bay u yaray, khamiis unbuu bixi jiray. khamiis inuu baxo unbuu jeclaa. marka inuu qofkii waxa weeye uu safarka uu wanaagsan yahay inuu baxo maalin khamiisa. rawa albukhaariy can kacb ibni malik radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam kharaja yowma alkhamiisi uu baxay fii gazwati tabuk, ghazwadii dagaalkii tabuk uu aadayay rasuulka sala allahu alayhi wasalam. tabuk waa meel u dhaxaysa sham iyo waadi lqura meel la yidhaahdo, waana sanadkii 9aad ghazwadii dagaalaankii dhacay weeye ayaa ghazwatu tabuk la yidhaahda. wa kaana yuxibu wuxuu jeclaa an yakruja inuu baxo yowma alkhamiisi maalin khamiisa inuu baxo jeclaa rasuulka sala allahu alayh wasalam. marka hadduu qofka safrayo waxaa sunno oo wanaagsan inuu maalin khamiisa ku aadisto. aadaabta qodobka 9aad ee safarka waxaa weeye idaa kaanuu jamaacatan hadday koox yihiin an yu'miruu axadahum qofkood inay madax ka dhigtaan. an yu'miruu inay amraan ay madax ka dhigtaan axadahum midkood. marka safar la baxayo kooxna ay yihiin jamaaco in la yidhaahdo adigaana maamulo, meeshii aan ku istaagi lahayn, meeshaan ku degi lahayn, wixii tala ah in laga amar qaato, qof amiir laga dhigto, madax laga dhigto. waxa isku dhex yaaca qof walbaba meeshuu doono iska istaago may. haddii la wada safrayo in qof talada iyo arrinka looga dambeeyo. روى أبو داود وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير إذا خرج 3 صدح في سفر والجماعي كوحه فليؤمروا أحدهم متكود مضح كدكتين بوي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كوح بحيثه متكود مضح كدكتين. قدر كالطبنادي آدابته وحوي الله يسحب معه inuu san macnaha safarkaasi alla yasxaba inuu san qaadan macahu la jirankiisa jarasun galbaleel oo muusiqiya ama wax muusig ah, wax muusig oo dhan ka sharqamayaan ama muusig iyo wax gambaleela ah midna inuusan qaadan. nabiga sallallahu alayhi wasallam daliishanay arrinka rawa muslim an abi hurayrah radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam qala wuxuu yiri aljarasu gambaleelka mazamiiru shaytaani. allahu akbar. annaguna taleefanada intaan iska saarana maantana muusig iyo wax iska ciiyeen waa daruuro wey. in yar oo qof uu kugu fahmayo ka taleefonka kale aad inuu cod kuu soo dhacay kaliya laga rabaa, laakiin hees iska saarata ka war, haddaad waxyaabo kala saarata ka war maanta inuu iska dhaco
waxyaabahaas oo dhan waa xaaraan wey qofka waxa loo baneeyay waxa telefonka ka dhacayo daruurada yarta ah inta marka waxa weeye aan wax dhawaaq yar oo aan macnaha aad ku garanaysa kaliya laakiin muusiga iyo heesaha iska daba dhacayo waxaas oo dhan ma banaano الجرس أي الجلجلة وحاجة جنبليل كدعية وحيابهاسي مزامير جمع مزمار وهو آلة موسيقية وحيابها موسيقى آلة دي سيوكلا مزامير وحيابها والشيطان كوحا وكسا ميسا الشيطاني ومزامير الشيطاني شيطان كموسيقى دي سيوي مركا إن قفك وحيابها سوقاته والله صاحبه وكحيسه ومبنان روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحويره لا تصحب الملائكة ملائكة لما صعته ومر عضو رفقة يقوح أما جماعة سفر الله أكبر بلاش أوفيرسو أي مجموعة كوح رفقة كوح فيها كلب ولا جرس أي جنب الليل بقوا الله صعد وح موسيقى قلب كيسية الله صعدان ودواقة يبا منا ملائكة مرة عضو قريها نسكبت ده وينو تلمامي دونا لا تصحب مرة عضو والله ما صعته الملائكة ملائكتي رفقة كوح فيها كوحدة دحديدة والله صعد كلب ولا جرس جنبليل موسيقى أي لا صعدان قodobka 11 waxa weeye xataa aadaanka lagu xiranayo quraanka la gelinayo ma banaana inaad ka telefoonada ka saartaan quraanki wuxuu noqonayaa wayda quri alqur'aanu fastami'u lahu ansitu balir quraanka marka la akhrinayo dhageysta oo dhig raariciyo u nuglaada leer adiguna cadaad ka dhigatay wax ku baraarujiyo markuu saa u soo dhacdo macnaha telefoon ka qabato quraanka istizaan noqonayo jaasiyas noqonayo marka ma quraanka lama gelin karo telefoonada culimada aad bay uga deyriyeen qodobka 11 waxa kamid ah at-takbiru takbirti inuu takbiirsado ida sa'ada uluwan meel sare markuu fuulayo markuu dalcad iyo meel sare fuulayo inuu takbiirsado Allahu akbar uu yiraahdo wa tasbiihu subhanallah inuu yiraahdo ida nazala markuu meel daadaga u hoobanayo saasa kamid ah aadaabta فهو أبو داود بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحير كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوش يعيد مليسي إذا علوا ثنايا ميل سروا بورا مركي فوريان كبروا ويتكبير سنيين رسولك صلى الله عليه وسلم ميل سر مركي أي فورا ثنايا جمع ثنية وهي طريق بين الجبلين ميل واحد بورا أول حي يسر مركي أي فوريان أيها واحد إلى ثنايا كبروا ويتكبير سنيين وإذا هبطوا مركي أي هوبانيان يدقيان وهوصوا هوبانيان صبحوا ويتسبح سنيين سبحان الله بيورانيان روى البخاري في صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحير كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لجرني فكنا وحنو أهين إذا أشرفنا مركي أنه ميل صرفه لينه على واد تك هللنا وأنه معناها هللنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكبرنا وأنه تكبير سنين الله أكبر الله أكبر ارتفعت وحا قرن قطي أصواتنا عضت كأني ميل صر مركي الله فوليه أيها وحمد الله ولا إله إلا الله الله أكبر عرضك بقى اسكت بخسامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحير يا أيها الناس ضضوا اربعوا أطرا على أنفسكم نفتين قيل هذا نسكي ريع دواقيسان فإنكم إذنكم لا تدعون أيرا ميسان السم فهذا كآد وقف في الصدى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحير أيرا ميسان وحوي الله سبحانه وتعالى لقال السم ولا غائبا يمد مقن ويران ميسانه إنه يسوي معكم لجيران كينوي إنه يسوي سميع الله مقل بدن ويقريب أو إذين دو تبارك اسمه وتعالى تبارك بركة بدناي اسمه مقعيس وتعالى سرية جده شرفتي سيه الله يران ميسان والذين دو إذن مقل يمخم حل قايل ميسان ولا دواقيسان محل دواقيسانه لقى قيلين نيسان بوي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم نفتين أطرع فإنكم آير مركان بور فوليته الله أكبر هو آير كان يسكوض وحلا على النواقب فإنكم إذنكم لا تدعون الصم مد قال أيرا ميسان ولا غائما مد مقنا أيرا ميسان إنه أصغوا معكم معي نويه وإذا لجرة نسرقيسي إقرقار كيسة إنه سميع مد إذا مقل يوي هذا شان قريب أو إذن دوية تبارك اسمه وتعالى جده مقعيس بركة بدناي وشرفتي سبضناتي وضبك الله بيطمناد وحاوي أن يدعو الله تعالى لنفسه ولأهله إنه أدعيسته نفتي سمكو سفر كيهاي يا أهل كيسي يقول كيسي داد كيسي أدعيسته
محايا قفك مسافر بريضة والله أقبله. روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري 3 دعوات سدح بريو مستجابات كو الله أقبل يوي دعوة المظلوم كي مظلوم كأها هبار كيسي ودعوة المسافر كي مسافر كأها بريديسي ودعوة الوالد بريدي والدك على ولده المه سؤد دعيني أما هباري والله أقبليا إسكا إلالي مركا قفك مسافر وإنو الدعيسة مركو الدعيسان يانا dadkii ehelkiisii carruurtii gurigiisa u duceeyo baryadii waa laga aqbalaya xadiiska dhowr jeer baynu soo marnay qodobka 13 waxa weeye idaa nazala baladan markuu balad soo dego isticaada billahi min sharriha magaaladaasi uu tagayo sharteedu Allah subhanahu wa ta'ala ka magan gelaya markuu magaalada soo gelayo sharteedii buu Allah ka magan gelaya markuu wax sahlan ma ah inuu qofkii waxa weeye aad iskaga ilaahay meeshu u socday iyo meeshu galay magaalada magaalo walba shar bay leedahay sharteeda Allah uu ka magan galo rawa muslim an khawlata bint hakim as-sulaymiyah radiyallahu anha rawa muslim an khawlata bint hakim as-sulaymi radiyallahu anha qalat waxay tiri sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayan maqlo yaqulu lahu man nazala manzilan man qofki nazala diga منزلا من الدقي يقول يا مكان ثم قال يرادا أعوذ وحن مجن جليا بكلمات الله التامات ألا كلمته سي مجعي صدام يسترن من شر ما خلق من شر ما شيء شرتي سن كم مجن جلي خلق أو أبوري قفك سيدا يرادا لم يضره إذا ميس شيء حتى يرتحل إلا أكررته من منزله يقول ذلك أرنكاسا وحدي يقول مجرى guryaha marka la degayo iyo markii la guri kale oo safar aad magaalo kale aad galaysid ducadan inaad akhrisid a'uudu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un dhibaya mala qofkaas hatta yartahila min manzilihi dhalik waxa dhici karta gurigaad u guurtay degaysid shayaatiin badegan yihiin hadhowba aad ka nasan weysid gurigiiba dib iyo shar iyo qaylaba uu ka bilowdo adinkoo iska fiican dad wanaagsan ayaad ba iska soo guurteen gurigaas iyo marka halkaas soo degteen baba shar bay idinku horeeyay waxa laga yaabaa dhibaatada halka inay ka asiibtay qodobka 14 waxa way cadamu safar inaan lala safrin bil mushafki quraanka ila ardi al-aduwi wadan cadow ah oo gaala oo cadow ah xaqiisa inaan lala safrin روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى وحو الريبي أن يسافر بالقرآن قرآنك إن لا صفره إلى أرض العدو ودن عدو حقيس إن لا صفره مخافة أن يناله وكبقيه أن يناله العدو عدوي إن كتابك قرآنك يقعنت يقرانه هذا وحوي قرآنك بابيه وأبناء هذا وحبك قبن كلمة marka la iska ilaaliyo hadaad ogtahay kitaabkii iyo wixii oo dhan in gaal gacanta ay u galayso ha qaadan oo ha la safin qof cadow gacantiisa inay la galayso qodobka 15aad waxa weeye alla tusafira inay san safrin almar'ata haweenti illa ma'a mahramin qodobkan waa muhiim laakiin gabdhihii dhagoodii waa u daadegi weysay inay ajiibaan alla iyo rasuulkiisii way maqli waayeen safarka ay nooca ku tagaan ayagoo sidaas safarkaas ku geeriyooda khatiiray ku sugantaa khawaatimtooduna way xumaanaysaa inay iska ilaaliyaan alla tusafir almar'ata haweenti inay san safrin illa ma'a mahram qof aan guursan oo aan guur geyin inuu kale inuu la socdo mooyee روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحويري قال النبي صلى الله عليه وسلم وحويري لا تصافر المرأة ما سفرتها وينتي إلا مع ذي محرم إنه لجر مويه ولا يدخل لا تصافر المرأة هوينتي يسن سفر ويه إلا مع ذي محرم إنه لجر مويه ولا يدخل يوسن أسوقل عليها دوش هذا رجل إلا ومعها محرم إنه لجر مويه فقال رجل نبا وحويري يا رسول الله رسولك الله إني أنا أريد وحندوني أن أخرج إن أنبحه في جيش كذا وكذا عيدا مضى نوع عاصة إن أنفع عندوني وامرأتي هوين تيدنا تريد الحج حج بيدونيسا بل أفير سمك هدوه من دولان إيا جيش إيا عيدا رسولك أبا بولي راعية هوين تيسيو حج أسعته ونكي عيدا كيبا كسر ريبو يري هوين تهدي راع فقال وحير أخرج معها كهر عيدا كو أخرج معها يضا لبحو الراع marka haweenay ma safri karto mahram la'aan adilla badan waynu ku tilmaanay meel badan waynu ka tilmaanay haweenay Allah rumaysay iyo maalin qiyaamo masiir habeen iyo maalin loo socdo ma safri karto illa ma aad inuu raxmiyaa mooyee hadii kale iimaankii baa baabaayo ila haween Allah iyo maalinka qiyaamo rumaysaa leeyahay haday maalinka qiyaamo iyo Allah rumayntiisa ay ku weyntahay ma safarteen laakiin haday ku yartahay iimaankii naaqis iska yahay
ayay iska safraysaa. qodobka 16aad waxa weeye an yatacallama inuu barto fiqa safari fiqiga safarka uu leeyahay. safarka markaad aadaysid fiqi diineed buu leeyahay, fiqigii inuu barto wamaa fiihi iyo wixii oo min aruqsati ruqsadii fi lcibaadaati cibaadaadka ruqsa loo siiyey. haddii salaadii maxaan ka samaynaya, goormaan gaabinaya, goormaan isku daraya, goormaan booraysanaya, goormaan kabaha masaxaya, goormaan tayamum iyo gebagabaysi aan la imaanaya, goormaan afuraya, waxyaabihii fiqiga uu lahaa safarkan inuu barto. iska safrin oo iska tegin. ko waxaa ka mid ah qasra salaati salaadii gaabinteedii, fiqiga uu baranayay salaadii gaabinteedii. qaala tacaala ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu noogu tilmaamay gaabinta salaada la gaabinayo qofkii waxa weeye uu gaabinayo fiqigii uu baranayey. ilaahay waxa uu leeyahy waidaa darabtum fi lard, waidaa darabtum waynu soo marnay aayaadkaasi, fi lardi arladii marka aad ku safraysaan, darabtum fi lardi ay musaafiriina masaafata qasri, masaafo salaada lagu gaabinayo marka aad ku safartaan, falaysa ma ahanin calaykum dushiina junaaxun wax dhiba an taqsuruu inaad gaabisaan min asalawaati salaadihii aad gaabisaan, wax dhiba ma leh. safar haddaad aadaan safarkaasna uu yahay kii salaada lagu gaabinayey, inaad salaadii gaabisaan wax dhiba ma leh. waxay yidhaahdaan si 48 marka meelahaas weeye, meelaha qaar bacdulculamaa ay yidhahdaan magaalada inaad ka dhammaato aad ka baxdo meel sahayda iyo boorsadaada iyo dharkaaga aad u xiranaysana aad aadaysid ayaa safar yidhahdaa. marbay magaaladu ballaartaa gudaheeda 30 kilomitr noqotaa, aadan waxba u baahnayn. laakiin markaad safraysidoo meel aad waxa weeye sahaydaadii iyo boorsadaadii iyo dharkaagii aad u xirxiranaysid. qol baad nagu furteen dee hadalkii casharkii socday. bal qolada halays naga amsa casharka waxay baan nooga haray. mood bal naga geliya. She had that one holiday off, or if it wasn't, she was always giving it to somebody. Well, yaa maamulay. they don't do it anymore. So she qolkaa didn't mood naga know. geliya bal gabdhaha hadlaya. You know, that's what you plan every year. So qasra salaati salaadii in la gaabiyo. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa darabtum fi lardi arladii marka aad safraysaan falaysa ma aha calaykum dushiina junaaxun wax dhiba an taqsuruu min asalawaati salaadihii inaad gaabisaan. almasxu cala alkhufayn baa ka mid ah kabihii masaxidoodii. rawaa muslim fi saxiix can shurayx ibnu lhani qaala wuxuu yidhi aataytu caaishaan u tegey as'aluhaa can ilmasxi cala alkhufayni, qofka in la masaxa anoo weydiinaya. as'aluhaa anoo weydiinaya can ilmasxi masxidi cala alkhufayni haragga lugaha la geliyo sida loo masaxayo anoo weydiinaya. faqaalad waxay tihi calayka biibni abi aalibin, calayka laazim oo u tag biibni abi aalibin, cali bni abi aalib weydii, fas'alhu weydii fainahu asaga ayaa kaana ahaa yusaafiru maca rasuuli lah sal la alay slam. bala fiqiga saxaabada u fiirso. caaisha oo guriga nebiga sala allahu alayhi wasalam ku noolay, xadiis hadda waxaynu soo maraynay qofka mas'alo la weydiiyo ama qof talo u weydiiyo, taladii wax ka khayr aan meeshay wanaaggeed ahayn meel kale u tilmaamo wuu khayaanay. caaisha bal u fiirso, waxaa weeye mas'aladaani si uga dherga ninkaani weydiinaya cilmigaani, haddii hawshii guriga iyo wixii nebiga ku saabsanaa iyo la weydiin lahaa iyadaa oga aqoon badan. saxaabaduna ay usoo diri jireen caaisha weydiiyay. laakiin maadaama safarka rasuulka sala allahu alay wasalam ruuxii ugu badnaa ee raaci jiray ayuu u dirtay leedahay ninkaasaad kaga dhergaysaa weydii. faqaalad waxay tihi calayka biibni abi aalibin, cali bni abi aalib weydii, fas'alhu weydii fainahu isaga kaana wuxuu ahaa yusaafiru mid la safra maca rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam. fasa'alnaahu waanu weydiinay. faqaala markaasuu jiri jacala rasuul lahi sala allahu alay slam wuxuu yeelay 3 ayaamin 3 maalmood walayaaliyihina iyo habeenadooda lilmusaafiri ruuxii musaafirkaa inuu masaxo. ruux hadduu musaafir yahay wuxuu lugihii haragga la geliyey sokiska iyo kabaha masaxan karaa oo uusan dhaqaynin 3 maalmood iyo 3dooda habeen. wa yawman walayla habeen iyo maalin lilmuqiimi qofkii gurigiisa joogayna wuu masaxan karaa. markay ka jabtaba waxaan qubays waajibinayn keliya, inta kale hadday ka jabto saxare iyo kaadi iyo waxa lamid a lugaha ma ka bixinayo wuu masaxaya. fiqigaynu kusoo qaadanay markaynu aadaabta khufaynkii aynu maraynay kitaabka fiqiga arbacada aynu akrinaynay. atayamum cinda faqdi ilmaa'i, inuu gabagabaysto booraysto markuu biyo waayo. qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa xanuunsanaya ow calaa safarin ama safar ku taagan, ow jaa axadu minkum midkiin ka yimaado min alghaa'idi meesha loo xaajo tago
أو لامستم أدوك الموتان النساء هوينكي فلم تجدوا أيضا هل ماء بيو فتيمموا أو لامستم أدوك الموتان النساء هوينكي فلم تجدوا أيضا هل ماء بيو فتيمموا أقصد سعيدا عرو طيبا وناكسا فامسحوا كم صح بوجوهكم وجيدين وإيديكم يقعمهين. الفطر في السفر وفي سفر كأهائن أفوري كره. وقال تعالى أيضا وحير ومن روحي كان هذا مريضا من حنون صنية أو على سفر أما سفر كتاغا ودوشي سفر أي آتي فعليه دوشي سواحا آتي عدة ترأي مالمو من أيام أخرى ومالمك لأو سوق ضيو وسوعليه. ومن كان مريضا قفك حنون صنية وانكري كريم أو على سفر أما مسافر أو سفر كتاغا أو مسافر ورسولك صلى الله عليه وسلم فعدة من أيام أخر أي فعليه القضاء ويمك فعدة أي فعليه دشي سواحة قضاء أو سوقضين بعدد الأيام التي أفطرها مريضا أو مسافرا معلمه أو حنون صنائي معلمه مسافر كا إن أو سوقضيه يا فضل بدل قفك مسافر كا هدو كصوم يهدو أفره مدى الثقة إن كفصير الدونا إن شاء الله تعالى مكين كتاب الصيام يتقنه 10 كان عاو انت سوكو إجيهاي wax badan ay naga dhaxgal galeen laakiin insha Allah taala waxaan noo dhameystiraynaa haduu Allah idmo habeenka axada aadaabul hadiya oo 10ka 38 ah iyo waxaan noo haraya aadaabun nawmi 10ka 39 ah iyo waxaan noo ugu dambeeya aan isku xiri doona insha Allah taala al-adabu ma'a an-nafsi kadibna insha Allah taala arbacada dambena haduu Allah nigaarsiyo waxaan ka dhigaynaa habeen 10ka kitaabkaas ku saabsan بارك الله فيكم جزاكم الله خير.